بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الزاهد رسول الملك الصمد واحد صلى الله عليه وسلم. dhalinyaro waxaad cashirkii shalay kliibkii ka horeeyey kan kaawe taraaciisii DNA-ga ayaan sii dhammaystiraynaa in yar insha allah. DNA-ga waxaan soo sheegnay inaynu nahay E1B1B inaynu nahay ayaan soo sheegnay E1B1B inaynu nahay. marka habla groupka waxaan ku wada jirnaa kushki ayaan ku wada jirnaa kushiti groupki ayaan ku wada jirnaa. habla groupka kushiti group markaan wada nahay haddana annaga waxaa inoo gaara E1B1B ayaa inoo gaara oo gaar aan u leenahay annaga cafarta oromada E1B1B ayaynu wada nahay. goormaa la kala irdhoobay, goormaa la kala cadowtinimadan waxay bilaabatay qarnigii 15aad markii axmed gurey allah u naxariistay ee la jibiyey ayay bilaabatay in la abuuro cadowtinimo si generationada dambe ee soo socda ee isku nacaan aanay isdhexgelin. waxa iminka ka socda cafarta iyo oromada iyo soomaalida ka dhex socda waa wax la abuuray ee la diyaariyey. kolkaa waxa weeyaan waxaan haddana ku sheegay kliibkii hore beenta kolkay farabadato runbay u ekaataa. waxaa laga dhaadhiciyey in cadowtinimo weligeeda ay jiri jirta. innaga cadowtinimo inagama dhexayn jirin. cadowtinimadan waa wax la abuuray ee la diyaariyey xilligii axmed gurey la jibiyey allah u naxariisto xilligaan bay bilaabatay. haddaba waxyaaba badan oo dhallinyarog lagu sameeya ayaa jiraan. dhallinyarogga waxaa ka mid ah sida taariikhdii higsos aan ka soo sheekaynay waxay yidhaahdeen kusoo qoreen bugaagtooda inay ka yimideen mesopotamia. okay, mesopotamia ka yimideen waaya. haddaba see u ekaayeen dad sideenoo kale ayay ahaayeen. marka hore waa kow waxay sheegeen inay maaragtay niilka koofureed inay degeen ay qabsadeen. niilka koofureed soomaali unbaa deganeed oo faraacinadii unbay ahaayeen. haddaba waa dad isku midab ah, isku magaciisi ah, waa wada faraacino dhulkaasoo dhan innaga ayaa joognay. waxay yidhaahdeen meesha la yidhahdo avaris ay ku qoreen. avaris maaha waxaweye magaca markaa baartid abaris ayuu noqonayaa. waan leenahay ilaa iminka abaris ayaa jirta, jaamacadda abariso ayaa jirta, waxyaalo badan baa jira. marka taariikh kolka la baarayo magaca layska hubiyaa, magacyada ay sameeyeena layska hubiyaa, dadka siday u ekaayeen DNA-ga intaan la gaarin intaabaa layska diyaariya, intaabaa la hubiyaa. cashirkan intaasaan ku koobaynaa, wuu socdaa insha allah. inaynu nahay asalkii adduunka oo halkaan laga wada hayaamay. maankaaga geli waxa weeye halkaana laga wada hayaamay. soomaaliya meel ay ka soo hayaantay ma jirto. dhulka mesopotamia xilligii ninkii la odhan jiray nimruud waxa weeyaan waa dhul annaga aan ka wada talin jirnay. mesopotamia ilbaxnimo inay leedahay layskuma hayo. buntna ilbaxnimo ayay leedahay, dhulkii udgoonka ilbaxnimo aada u fog oo aada u fog oo xataa faraacinada xilligeeda kasii horreysay. faraacinada kolka la tegayo waa dad maaragtay waxaynu ahayn intaanan faraacinada aan gelin loo soo doonta culumta injineeriyada dhismaha xataa loo soo doonta. waayo markaa kasoo qaadid fircoon ahraamkii giza waxaa lagu dhisay iftiinka qoraxda inay 2 goor soo gasho sanadkii loo caleema saaray iyo sanadkii uu dhashay. waxaa lagu fariisiiyey loolalka ay qoraxda ka soo baxdo ayaa lagu fariisiiyey. ilaahay qur-aanku inoogu sheegay rabbulmashaariqi wa rabbulmaghaaribi. rabbulmashriqi wa rabbulmaghribi